maxaad u malaynaysaa markii la siiyo $10 daqiiqadkuma qaadan lahayn sidaa darteed marka ayaan maxaan ku dhahaa rabaa inaan usii xoojiyo aan haddana maxaan ku dhaha idinkana aan idiin soo gaarsiiyo idinkana fadlan waxaa idinka codsanayaa qof walba oo fariintan ay soo gaarto fadlan sii faafi si markaasi dowladda iyo madaxda ay u gaarto تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام إن تطاول ليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وراك عبد الرحمن وحرجنا دمانتم بين اللينتين waxaa marka hore tacsi tiiraanya loo diriyaa dhammaan dadkii maxaan ku dhahaa dhibaato kasoo gaartay ama ehelkooda ay ku dhinteen qaraxii u dambeeyey ilaahna waxaan ka baryaa dhammaan cid walba dhimatay ilaahay shahiid ka dhigo ilaahna ugu bishaareeyo jannati firdaws intaa kadibna biidni illah waxaa maanta meesha usoo fariisaha waa inaan arrintii aan xoojiyo arrin aan kasoo maqlay sheekh maxamed idriis ayaa waxaa la weydiiyey su-aal ah maxaad u malaynaysaa maxaa keenay in macnihii qaraxan camal uu joogsan kari waayo ama ay sidan u socoto dowlad walba oo timaadana ay isku daydo inay joojiso marka waxaa lagu yidhi maxaa keenay sheekh runtii arrintuu ku jawaabay ayaa runtii aad ii taabatay aadna ii cajiibisay arrintaas ayaa rabaa inaan sii xoojiyo aana sii macni isku dayo inaan sii faafiyo lacalla waxaa rajeynaya inay khayr noqday rajeynaya sheekh marka waxaa yidhi waxaan u arkaa in laga gaabiyo xuquuq la siin lahaa askarta in laga gaabiyey taas inay sababtay in macnii arrimahan ay soo noqnoqdaan madaxdeena allah ha xifdiya ilaahay ka sokow askarta dartood ayay macnii runtii hurdo fiican u seexdaan askarta dartood ayaa maxaan ku dhahaa bay wasaaraddeena maxaan ku dhahaa u shaqeeyaan oo amni u helaan askarta dartood ayaa maxaan ku dhahaa muqdisho loogu dhex damaashaa askari baa habeen dhow hadlaya markaasi wuxuu yidhi maxaan ku dhaha dhaxanta iyo qabowgiiyo dhibicdaasi roobka waxaan u dhex taagnahay dadka dhammaantood ay u wada jiifaan dhabayaashaan u wada dhowraa calanka dhoorka suran iyo dhulka hooyo waaya hadal saas camal ayuu ku hadlay macnii runtii wuxuu sheegay in marka dadka hurdaan ay wada jiifaan ay wada khuurinayaan roobkuna uu da-ayo dhaxantana ay jirto inuu asaga usoo taagan yahay si adiga hurdadaada aan looga qasin si adiga hurdadaada si fiican ay kugu dhammaato si adiga subaxdii aad u soo kacday si adiga subaxdii aad si amni iskool ku aaday si adiga subaxdii aad si amni ganacsi u aaday si aad adiga u noolaatay ayuu ninkaana askariya dhaxantana u taagan yahay roobkuna ugu da-a har habeen hurdadiisa u waayaa sheekha markuu wuxuu yidhi askariga sidaas ah ayaa wuxuu qaataa $200 halka madaxda iyo maxaan ku dhahaa wasaarada dadka macnii wasiirada ah iyo xildhibaanada iyo dhammaan dadka dowladda u shaqeeya ay qaataan $10 sheekha markuu wuxuu tagay sidee marka macquul ku noqonaysaa in askari saa u dhibaataysan in askari tiisa la yaab in haddana $200 uu qaato inuu amnigaad uu 100% u sugo sidee u noqonaysaa sidee niyadiisa u buuxdaa maalin walba waxaan daawanayay askarta markii macnihii dowladda allah barakeeyo markii maxaan ku dhahaa isheeg mushaarka ay u badisay $200 ay kaga dhigtay askarta waxaa laga soo qaado wareysi markaas askarta macnihii qaarkii waxay dhahayeen maasha allah dowladda u duceynna hadda maxaan ku dhahaa waxaana galay maxaan ku dhahaa runtii himilo weyn ayaana gashay hadda ayaan buuraha macnihii maxaan ku dhahaa aan ugu tegaynaa nimankii iyaga ahaa hadda ayaan maxaan ku dhahaa soo baabi'inaa hadda ayaan waddanka amni ka dhigna markii $200 la siiyey aad ay u farxeen maxaad u malaynaysaa markii la siiyo $10 daqiiqadkuma qaadan lahayn boonti waa maxay runtii intii madaxda $10 qaadanayso yaa wasiirada intii $10 qaadanayaan intii xildhibaanada $10 qaadanayaan inta dadka u shaqeeya dowladda ay $10 qaadanayaan halka ninka naftiisa huraya dhiiggiisa hurayana uu qaadanayo $200 halkaas runtii xaqdarro ayaa ka jirta runtii waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa in mushaaraadkiina qayb kamida aad u goysaan oo aad siisaan ciidamada maxaan ku dhahaa qalabka si markaas ay ugu sii noqoto dhiirigelin intii aad arrintaa ka sameynaysaan runtii waxaan dhihi karnaa inaad tahay wadani dhab ah su-aal ayaa ka taagan maxaa yeelay haddii aad tahay wadani dhab waxaas dhib umaada arki lahayn bal baad u jari lahayd codsi ay iga tahay
in fariintan maxaan ku dhahaa aad maqashaan idinka hadda ee daawanaya fadlan waxaa idin leeyahay gaarsiiya oo sii faafiya si ay u gaarto dowladda ilaahna waxaan ka baryaa wax walbaan iri inuu ilaahay khayr ka dhigo runtii wax hadda aan sheegayo xumaaniga ma aha waxayga ma aha keliya waxaan rabaa in wadankeena hooyo uu amni barwaaqo noo noqdo marka waxaan u arkay inay tahay fikir fiican ayaan u arkay sidaa darteed marka ayaan maxaan ku dhahaa rabaa inaan usii xoojiyo aan haddana maxaan ku dhaha idinkana aan idiin soo gaarsiiyo idinkana fadlan waxaa idinka codsanayaa qof walba oo fariintan ay soo gaarto fadlan sii faafi si markaasi dowladda iyo madaxda ay u gaarto ilaahna waxaan ka baryaa hadalkan inuu khayr ka dhigo markaasna madaxdana ay maqlaan waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi